kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka tus ama tursinta ummadda Soomaaliyeed oo idinla socodsiiyaan anagoo bahda Shawaal Media. barnaamijka saad uga barateen waxaa ila daadiyay Fuaad Abdi Ismaaciil. qodobka aan uga hadlayno toddobaadkan waa isticmaalka daroogada ama maandooriyaha oo ku soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyaga oo qaar fara badan ay ugu jiraan halis qaar fara badan ay u dhinteen. haddaba waxaa stuudiyaha maanta marti noogu ah Dr. Zaak Shariif oo isagu ka hawlgala gobolka Washington iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo isagu ah madaxa hay'adda Daryeel Youth isla markaana muddo dhowr iyo 20 sano ah la shaqeynayay dhalinyarada gobolka Minnesota. Dhalinyarada badanaa waxay barteen waxa la dhaho opioids. Darooga marka laga hadlayo waxa waaye laba dhinac bay u kala baxaan, stimulant iyo depressant baa jiro. Opioids wuxuu ka mid yahay depressantka waxa la dhaho. Stimulant-ka waxaa ka mid ah sida methamphetamine, cocaine. Depressant-ka waxaa ka mid ah sida opioids-ka, alcohol-ka. qof yimid oo maaragtay BC shay iga cabay 5 daqiiqo kadib intuu iga tagay qaatay maaragtay maandooriyihii soo isticmaalay kadib laygu yeeray isagoo afka xumbuqay maaragtay ka baxay ila tabqashada xusuusta wadani mukadali 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 kusoo dhawaada markale barnaamijka tus saan hore idinku sheegnay. barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya Dr. Zaak Shariif oo isagu ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka hawlgala gobolka Washington. Zaak kusoo dhawaada barnaamijka. waxaa kaloo isaguna nagala qayb qaadanaya barnaamijkan oo khadka telefoonka Skype-ka kaga qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Mukhtaar oo isagu ah madaxa hay'adda Daryeel Youth isla markaana ah shakhsi la soo shaqeeyay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha ee loo yaqaano St. Paul iyo Minneapolis. Cabdiraxmaan waxa uu in badan ka soo shaqeeyay xarunta Brian Cole oo ah ku taala meesha ay Soomaalidu ugu badan tahay ee loo yaqaano Cedar Riverside. Cabdiraxmaan kusoo dhawaada barnaamijka. waan dhawahay naasir waa mahadsantihiin labadiinuba. Cabdiraxmaan haddaan adiga kugu bilaabo Soomaalida ku dhaqan qurbaha waxaa jirta marxalado fara badan ayay maraan. marar badan waxaa jirta dhanka baraha bulshada waxyaabaha aan ka maqalno sida gabdho yar yar oo la iibsado. waxaa jirta oo kale oo soo aragnay oo baraha bulshada aad u haysan jiray dhalinyarada israsaasaysa oo Soomaalida ah walow weli ay jirta arrinkaasi iyo kufsiga dhallaanka iyo haweenka. hadda baraha bulshada waxaa aad loo hadalhayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaala maandooriyaha ama mukhaadaraadka oo waliba aad maaragtay dhibaato fara badan u geysta qaar ay u dhinteen qaarna ay xaaladooda aad ula liidato. marka adoo dib u milicsanaya Cabdiraxmaan su'aashii hadalkaygii hore waxani ma wax inagu cusub baa haddaynu nahay Soomaalida qurbaha mise waa wax hore u jiri jiray oo social mediaha ama baraha bulshadu ay ifiyeen? cabdiraxmaan adiga iyo bahda Shawaal aad iyo aad ay u mahadsantihiin iyo asxaabka isaguna barnaamijka martida ku ah. waa su'aal muhiim ah hadda haddaan ku sheego arrintan maandooriyaasha ama gaar ahaan drug overdose-ka dhalinyarada u dhimanayaan bulsho ahaan Soomaali ahaan adigu 2 sano 3 sano hadda soo dhaafay aan dhihi karo ay aad u noqotay dhibaato aad u saamaysa dhalinyarada iyo qoysaska Soomaaliyeed. balwad way jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed balwadaha ama maandooriyaasha isticmaali jireen waxay ahaayeen inta badan alcoholka iyo maaragtay shiishada ama waxa wiidka loo yaqaano iyo maandooriyaasha kale ay isticmaali jireen. laakiin 3 sano ee lasoo dhaafay waddanka Maraykanka waxaa fara kulul dhibaato badan ku haya opioid crisis-ka iyo maandooriyaasha noocan opioidka loo yaqaano oo noocyo badan kala leh. marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kala siman yihiin oo ay mid kala yihiin dhibaatadan dalka Maraykanka oo dhan ka jirta. laakiin marka loo barbar dhigo marxaladii kale ama dambiyadii kale ama dhibaatooyinkii
kale dhalinyarada saameyn jiray labadii sane hadda u dambeysay sanadkan hadda aan ku jirnay sanadkii ka horreeyey ayay aad dhalinyarada soomaaliyeed si xadaaf ah ayay ugu dhinteen una bilaabeen ama u dhexgaleen isticmaalka maandooriyaasha noocan oo kale ah da'dee ayaa is leedahay way hadda saameynta ugu badan way haysataa ama da'dee ugu badan muqadaraadkan hadda da'da isticmaasha teenage-ka 16 jir ilaa 25 inta udhexaysa ayay u badan yihiin bal wax ma nooga sheegi karta inta adigu aad ku dhex jirtay aad aragtay ama aad la shaqaynayso dhalinyarada noocyada ay kala yihiin daroogooyinka ay isticmaalayaan noocyada hadda gaar ahaan markaan ka hadalno opioidka ama maandooriyaasha hadda dhalinyarada ay u dhintaan dadku inta badan waxay maqlaan kiniiniya carruurta u dhintaan waa kiniiniyo ama noocyada iskugu jira xanuun baabi'iyaal laakiin inta badan vitadink oo kale xanuun baabiye ah heroinka oo kale waxaa kaloo jira morfinka oo isagana xanuun baabiye ah oxycontinka oo isagana xanuun baabiye laakiin kan ugu daran ee dhalinyarada u dhintaan ama aadka ay u isticmaalaan waa fentanalka waana kiniin macmil ah oo maaragtay kiimika ah aanan ahayn drug sax ah laguna daro heroinka iyo mararka qaarkood waxaa lagu daraa dawooyin kale ama sun waaba dhihi kartaaba si wixii aad loogu adkeeyo waxaana dhacday hadda sidii cudurkan covid-19ka uu u dhacay maadaama adduunkii la kala xiray oo xanibaad badan ay timid socdaalkii iyo adeegii waxyaabihii wadamada soo geli jira ama ka bixi jiray dibdhaco ku yimid 3 bilood ugu horreysay maaragta cudurka covid-19ka march ilaa june oo kale waxay ahayd markii ugu darnayd ee dhalinyaro aad u tira badan ay u dhintaan maandooriyaashan gaar ahaan kiniinka fentanalka sababta keentana waxa weeye nooc macmil ah ayaa laga gadayey maadaama supply-kii wadamada kale ka imaanaya sida china oo kale ama wadamada laga soo dhoofiyo ama xuduudka mexico ha noqoto adiga drugskii waddanka soo geli jiray ee intooda badan saxda ahaa ayaa yaraaday taas waxay kelitay marka dadka ka ganacsanayay maandooriyaasha inay ay sameeyaan nooc macmil ah oo aad u xun oo sunta jirka iyo maaragtay xitaa marka qaarkood xitaa saabuunta dharka lagu dhaqdo ee budada ah ay ku daraan taasoo keentay marka in dhalinyaro badan ay u dhinteen dr zak waad maqashaa dhalinyaradii soomaaliyeed waxay isticmaalayaan fentanyl iyo codeine iyo daroogooyin fara badan oo kala duwan marka saameyn intee la eg ayay jirka qofka wallaahi ku yeelan kartaa waa mahadsan tahay horta cabdiraxmaan adigii fu'aad marlabaad ay ugu martiqaadeen bahda shaywaal media topican maanta laga hadlaayana waa topic oo muhiim ah khaasatan communityga soomaaliga minnesota ama seattle meelaha ay ku badan yihiin because dhalinyaradeenii badanaa waxay barteen waxa la dhaho opioid siduu cabdiraxmaan hadda sheegayay opioidskana waa drug ka mid ah daroogooyinka la sameeyo ama also baxo daroogo marka laga hadlaayo waxaa waaye laba dhinac bay u kala baxaan stimulant iyo depressant baa jiro opioidska wuxuu ka mid yahay depressantka waxa la dhaho stimulantka waxaa ka mid ah sida methamphetamine cocaine depressantkana waxaa ka mid ah sida opioidska alcoholka marka jirkaada muxuu ku sameynaa markaa opioidka qaadatid horta opioidka waxaa loo sameeyey in xanuunka dadka laga dejiyo wax xun ma aha waxa qofku markuu u baahan yahay uu isticmaalo waaye maalin walbana prescription waa dhiibnaa oo opioids percocetska oxycodone norco markuu qofka isbitaalka jiifano morphine iyo fentanylka xataa cabdiraxmaan uu sheegaya isbitaalka waa lagu siinaya xanuunka qofku markuu surgery kasoo baxo waa la siinaya bal laakiinse waxaa dhibaatada ah addiction buu leeyahay marka qofku markuu misuse sameeyo opioidska ama any other medication la siiyo misuse markuu ku sameeyo addiction ka bilaabmaayo meeshaas addictionkaas waaye waxa dhibaatada keenayo marka haddii la dhaho what kind of effects uu ku sameynaya qofka baadhigiisa sidaa sheegay magaca haddaa ka raacday waa depressant waxa dareenka qofkiisa dhan hoos buu u dhigayaa so
opioidskana waa maskaxda markuu uu receptorka ku baangareynayo qaybta wuxuu ku dhagayaa oo laga neefsanayo oo midbrainka ah marka wuxuu ku neeftaadu hoos u dhigaya midda kaleeto qofku markuu uu zaa'id tolerance yeesho uu more uu sii qaato then depress uu ka dhigaya overdose uu ku noqon karaa laakiin se qofka caadiga markuu raaxo u qaadanayo oo ciyaalka addicted ka ah waxay dareemayaan sida oo markaa daawo oo dentista kasoo qaadata camal gaari hawada marka lagu dhahayo drowsy aa noqonaysaa hurdaa noqonaysaa gudaha laakiinse farxad baa ka helaysaa because wuxuu ku baangareysmayaa euphoria wax la dhaho uu siinayaa because wuxuu ku baangareysmayaa receptorska madaxa oo marka wax fiican kugu dhaco dopamine buu soo deeyaa maskaxda chemical oo farxadda marka wax fiican qofku uu farxaya marka saas camal waayo marka opioidska ay qaataan marka gudaha farxad ay dareemayaan baadigooda caadiga outside-kana depressed bay aad like drowsiness iyo lazy iyo laid back bay yihiin marka guriga joogaan iyo xaafadda siyaabaha ay ku helaan daroogadaas hadda waxaad sheegtay in prescription lagu bixiyo dhalinyaradana waxay ku helaan qaabka ku helaan ma garanayno laakiin siday u isticmaalaan waa si addiction oo dee iyaga aan loo qorin oo xad ka baxay u isticmaalaan wax dhibkan keenaya marka siyaabaha ay ku helaan wax ma nooga sheegi kartaa wallahi siyaabaha ay ku helaan horta percocetska iyo haddii lasoo qaaday iyo oxycodone jidkay ka gadanayaan qof oo ama maamo ama qof weyn oo loogu talgalay daawada loo soo qoray bay kasoo qaadanayaan ama ayagay naftirkooda ciyaalka dhalinyarada inay daktarka u tagaan dhahayaan sida waxyaalaha la sheegay bay yaqaaniin dhabarka ay xanuunayo intaasaan ku dhacay halkaasba ay xanuunayo waxyaalaha oo daktarka markaa ku dhahdid oo daawada kugu siinayo ay yaqaaniin marka badankoodana waxaa jiro kuwa oo prescription ahayn baa jiro sidoo Cabdiraxmaan sheegay fentanylka camal prescription kuma dhiibno fentanylka waa qof daawo culus waaye oo synthetic opioids waaye basically marka kaasna waa China iyo meelahaas baa laga soo sameeyaa dhibaatada leedahayna sidoo Cabdiraxmaan sheegay waaye qofka sameynayo qof oo chemist ma aha marmar waxaa dhacayso marka daawada in lagu daro more than intii loogu talgalay marka heavy opioids ku jiro marmarna waxaa dhacayso marka intii loogu talgalay ma in ka yar inay ku jirto so qofku mar wuxuu qaadanayaa mid oo wax yar ku jiro dareen fiican ku dareemayo markaas wuxuu dhaafnay kii hore wax fiican kuma dareemine 2 iyo 3 hal mar isla qaadanaya 2 iyo 3 qaadanaya saddexdaas hal ama laba waxa ku jiro oo in badan lagu daray markaas uu overdose noqonaya qofka marka fentanylkaasna waxa lagu daraa streetka waxay dhahaan perk 30s ciyaalka Percocet 30 ajro oo company caadi sameeyo perk 30 gaas marka ciyaar ma lagu helaayo ciyaar lagu ma helo marka dadka China iyo meelaha ka imaado perk 30 gaas amal waaye laakiin se Percocet kima ah waa fentanyl wax lagu daray Cabdiraxmaan marka hadii aan in badan baa wax la soo shaqeynaysay dhalinyarada labada magaalo ee mataanaha muddo 20 sano inta badan waxaa jirta in dadkeenu dhalinyarada noocaas ma aragtay la leeyahay way isticmaalaan mukhadaraadka in ay ka haystaan sawir marka waa dhalinyaro nooca inta adigu aad ka garanayso dhalinyarada waa saa sheegtay dadku waxay u maleeyaan markay maqlaan dhalinyarada ayaa maandooriyaal isticmaala ama drugs qaata waxay inta badan u haystaan inay yihiin dhalinyaro noloshii ka dhacay ama inta badan ayaga magacyo ugu yeeraan oo ama baluud u go'ay ama dhalinyaro darbidaas taagan oo ay dhahaan dhalinyarada waa gangs oo ku israasanayay waxay u haystaan inay yihiin dhalinyarada maandooriyaashan qaata inay yihiin dhalinyaro iyagu markaas u go'ay oo ama jidka taagan ama dambiye galay ama aan dhihi karno maaragtay ama ciyaar suuq si Soomaalida ugu yeeraan ay dhihi karaan magacyada dadka dhalinyarada ugu yeerno laakiin way ka duwan tahay xaqiiqdu way ka duwan tahay dhalinyarada ugu badan ee qaata waa dhalinyaro wax barta waa dhalinyaro shaqaysta waa dhalinyaro qaarkood xaafid quraan ay yihiin oo aqoontii diiniga iyo maadiga ay barteen way ka duwan tahay ma aha sidii waagii hore dhalinyarada u go'a balwada khamriga oo kale waa la yaqaanaa oo darbiyada ayay taagan yihiin 24 saac oo naftooda u daran yihiin kuwaas laakiin iyagoo khamrigii markay ka dhargaan dhacdhacaya
ayaad arkaysaa ama derbiyada taagan ama khamriga ka soo urayso kuwan gabdhihii wiilalba way leeyihiin gabdho aad u tiro badan oo da'doodu yar tahay ayaa qaata waana wax waalidku sida khamriga iyo wiidka oo kale ama qofku markuu sigaarka cabo way soo uraan khamri markaa cabto qofka way ku soo uraysaa maaragtay shiishada wiidka qofku markuu cabo way soo urtaa sigaarka qofku markuu cabo ur gaara ayuu leeyahay laakiin maandooriyaashan wax ura ma laha mana dareemi kartid kiniinadana qaarkood dhinac ayay u egyihiin midabo kala duwan waana wax ka duwan oo ma aha wax sidii waagii hore loo soo raadsan jiray derbiyada ama dad gaar ah drugga dadka gada meel gooniya ayay taagan yihiin laga gato ma aha tan mararka qaarkood xitaa delivery guryaha ayaa carruurta ama dhallinyarada loogu keenaa marka waalidka ma oga wuxuu leeyahay hoos ayaan u degayaa saaxiibka ayaan waxaan ka soo qaadanayaa maaragtay wax cunugiiba marka sabarbanka degan xaafadaha fogfog ee soomaalidu carruurtooda oo la carareen waa carruurta ugu badanna xaafadahaasay degan yihiin dhalinyaradii suu cabdiraxmaan ka dhawaajiyey khamrida iyo xashiishka iyo sigaarka iyo waxyaabaha qofka si fudud lagu garan karo laakiin daroogooyinkan hadda noocaasa ma la garan karo marka waalidiinta qaabkee ayaad isleedahay way ku garan karaan ilmahooda in ay isticmaalayaan dawooyinka noocaas ma jiraan cunuga science-ka opioidska wuxuu kaa dhigayaa sidaa sheegay daaye very drowsy qofka oo hurdo camal inuu hayo constipation buu ka keenayaa qofka markuu waxaa la ogaan karaa more so markuu qofka opioidka isticmaalo hadduu dependent uu noqday markuu uu waayo opioidska withdrawalka are more of a better sign aa ku ogaanaysid cunugaaga markuu opioid dependent uu yahay markuu dawada waayo hal beri laba beri marka wuxuu noqonayaa isaga dhan anxious buu noqonayaa dhididayaa markaasu wuxuu noqonayaa diarrhea buu ka imaanayso one of the signs of withdrawalska waaye marka opioidska uu ku jiraan hadduu qof cunug weligiisba laid back iska ahay opioidska markuu qaato very laid back buu noqonayaa drowsy uu noqonayaa gudihiisana isaga dareen fiican uu dareemaya oo adiga aadan fahmaynin uu iskaaga qoslayaa waxaa sheegtid marka saasay dareemayaan opioidska markay dadka qaataan bal laakiinse haddaadan in yar qof oo aad tahay oo dawada sidii loogu talgalay aa qaadanaysid sidii hadduu kaniiniga eleg lagaa soo saaro kaniini lagu soo qodo sidii lagugu talgalay haddaa qaadanaysid waxaas dhan ma dareemayso mo inta lagugu talgalay baa qaadanaysaa inaad dareentid waa laga yaabaa kiser drowsy happy that's an addiction kastuu ku bilaabta waayo hadda anigu maalin dhaweyto gabar baa isbitaalka aan imaatay emergency roomka lasoo gelinayay waa heroin addict waayo marka waa iska wareysanayay badankoodana sheekada waa wareysanaa marka waa cadaan waa wareysanaa marka su-aalaha weydiinaysa waa maxaa isticmaashaa waxay ku dhahaysaa heroin iyo methka baan isticmaalaa goorma isticmaalaysay 6 sano baan isticmaalay bay ku dhahaysaa markaasaa weydiiyey sidee ku bilaabday waa su-aalahan iska weydiiyo dadku markay imaadaan markaas bay dhahday niyahow hadda homeless baa ahay shaqaan haysan jiray meel fiican baan ka shaqayn jiray laakiinse dhabarkii ay xanuunay injury soo gaaray oxycodone baa laysoo qoray badankoodana 70,000 overdose baa opioids ku dhacaa sanadkii badankoodana saanay ku bilaabaan waa dad oo reer fiican ka imaaday family leh opioidskaasaa loo soo qorayaa dhabarka xanuunayo marka dhakhtarkii dee ma sii wadaayo wuxuu ku dhahayaa taper iyo wax inuu kugu sameeyo waa laga goonayaa marka opioidska inay raadiyaan waaye oxycodonekii ama percocetskii marka jidadka inay aadaan waaye jidadkii too expensive waaye dan kii dhakhtarka uu ku qoraayo markaas waa gateway to heroinka waa cheaper better highna way ka helaan marka saasaan ku noqday dhahday kadib kii jidadka aan ka gadanayo waa afford gareyn waaye dan heroin aaday dhahday badankoodana saasay ku bilaabaan dad oo haddaa aragtid opioidska dad xun ma aha dad oo gang siduu cabdiraxmaan sheegay oo qaldan maaha waa one time waa addictionka hal mar maskaxdaada markay barato marka inaa ogaano waay markuu qofka qaato receptorska maskaxda uu ku dhagaayo waa receptorska qofka oo markuu farxadda iyo dareenkiisa kor ama hoos u dejinayo uu ku dhagaayaa maskaxda oo euphoria keenayo marka qofka caadiga dareenkiisa meel dhex buu marayaa markuu wax fiican ku dhaco
waa kor u kacayaa habiyu noqonayaa 2 beri hal beri saacadooyin dan meeshiisa normal kusoo noqonaya markuu wax xun ku dhaco kisir hoos u dagayaa haddana kor u soo noqonaya balance kaas uu ku jiro and then the main thing waxa waaye meesha oo qofku uu ka neefsado uu ku dhagayaa to chemicalka then competition buu la sameynaa that's why qofku markuu overdose noqdo bahal la dhahaa la siiyaa Narcan ama naloxone hadda dadka waa dawo oo la compete gareynayo opioidska meesha qofku uu ka neefsanayo receptorskaas ka saaraya isaga ku dhagayo chemical receptorka uu ka saaraya asaa fuulaya because qofku markuu overdose noqdo receptorska meesha uu ka neefsanayay ayuu laga buuxiyay opioidska ka buuxiyay marka baadhigiisa caadiga neefsashadii ma yaqaan waa chemicalka drugii baa fadhiyo oo Narcanka marka drugii meesha ka saara uu antagonist wax la dhaho wala compete garana uu ka saaraya qofka that's why uu soo noqonaya markuu paramedics camal qofku markuu down noqdo Narcan bay siinayaan hal mar ay siinayaan 2 mar ay siinayaan mar 3 jeer inay siiyaan before qofku uu soo noqonaa laga yaabaa Cabdiraxmaan sababaha keena inay dhalinyartu muqaadaraadkan aad u isticmaalaan wax ma noo sheegi kartaa waa su'aal muhiim ah sababaha ku kalifa dhalinyarada inay maandooriyaashan isticmaalaan ama waxa keena gaar ahaan kiniinadan iyo noocan inay isticmaalaan horta intooda badan markaan la sheekaystay aan waraystay waxay ii sheegeen in wax trauma uu jiro trauma la kulmeen tusaale ahaan wiil aan la hadlay wuxuu ii sheegay in saaxiibkiis lagu agdilay xabadana loo waday labadoodaba marka maadaama saaxiibkiisna xabadii loo waday maaragtay uu ku dhintay isagiina uu meesha taagnaa xanuunkii iyo cabsidii iyo xaaladii u gala daraaddeed ayaa dhalinyaro saaxiibadiisa waxay ku dhaheen maaragtay isticmaal maandooriyahan xanuunka isaga kaa biinaya carada marka waa wax lagu qasbay waaye yani waa wax marka dhiirigelinayo waa wax xanuunka ma xanuunka sidoo dhakhtarka sheegay maandooriyaashan intooda badan gaar ahaan opioidka waa xanuun baabi'iyo marka qofka markuu wax tabanayo marka xanuunna waa xanuun nabar meel surgery ama nabar uu kaa gaaray ama qalitaan lagu qalay ama jug kugu dhacday xanuunkii markuu ku hayo maaragtay kininkii wixii haddaa u qaadato wuxuu markaas uu kaa caawinaya inuu xanuunka kaa baabi'iyo moogtahay kan laakiin waa wax cabsi ama traamihii qofka waxaas marxaladii uu taagnaa qofkii saaxiibkiisa la toogtay xabadii lagu soo furay cabsidii daraaddeed si xanuunkii iyo walwalkii uu iskaga baabi'iyo marka ayuu u isticmaalay maandooriyaha marka waxaa intuuna isticmaalin marka waxaa dhacaya marka depression oo ah qofkii inuu isla hadlo depressionkaas oo walwalka iyo inuu guriga kasoo bixi waayo isla hadal cabsi maaragtay isagoo maskaxdiisa kusoo noqnoqonaysa sida tusaalaha usoo qaatay xabadii lagu soo riday iyo qofkii saaxiibkiisa ahaayoo dhintay iyo sidii wax u dhaceen marka qofba si ayuu traamahaas kusoo maraa laakiin waxay isleeyihiin markay depressionka galaan walwalkaas iyo marxaladaas xanuunka ayay isleeyihiin xanuunka ku baabi'i marka maalinta u horeysa markay qaataan yani farxad yara galaan siduu dhakhtarku sheegay waxay isleeyihiin marka maalin labaadda farxaddii mid ka fiican si aad u hesho halkinin haddaa qaadatay 2 ka dhigo siduu dhakhtarku sheegay marka waxaan waa macmil waa maandooriye weye waa wax maaragtay kiimika ah waxa lagu soo daray ma ogid ma aha fentanalka siduu dhakhtarku sheegay lamaba qoraba dadka looma qoro xitaa marka qofka xanuun baabiye ahaan lagu darayo la siinayo waa wax dhakhtar uu qiyaasay oo qiyaas leh oo la og yahay oo laga taxadaray marka wixii ayna ogeyn waxa ku jira ayay qaataan marka taas ayaa keentay overdose-kana waxa keenaya laakiin guud ahaan waxay ku bilaabaan traamahaas iyo kadib xanuunkaas depressionka ku dhaca isla hadalkaas iyo walwalkaas waxay isleeyihiin marka xanuunkii ku baabi'iya kadib way la tagtaa marka communitygeena Soomaalidu waxaan u maleynayaa dadba suu bahalka usoo gaaro waa ka duwan yihiin haddaanku saa sheegay waaye wuxuu kusoo gaaraa usually ama injury ama wax uu ku dhacay anagu ciyaalkeena waxay la tahay mostly waa peer pressure dhalinyaro waaye dadkeena dhalinyarada kale taa ku dhiirigelinayso hebel baa bartay meeshuu kasoo bartayba
marka wuxuu dhahayaa niyo bahalkan waa bahal dareen fiican ku siinayo hal xaba baroway marka addictionka lagu sheegayana waa all it takes is one time waxaa la dhahaa dadka heroin userka the rest of their life waxay raadinayaan haygii the first time ay qaateen marka one time uu cunuga qaato bahalka dareenka uu dareemo marka sidoo Cabdiraxmaan sheegay waa dareenkaas uu raadinaya the more uu ku sii daraya hadana nooc kale to darooyinka gateway buu u sameynaya darooyin kale inuu raadiyo haygaas uu iska raadinaya Soomaa marka darooyinka dhan baa asaas hal mar marka taawatid dareenka dareentid raadinaysa waligaaga addiction waaye marka addiction-ka la sheegayana waa anagu Soomaali hadaan nahay addiction iyo waxaas uma aaminsanin waxaan dhahnaa warniyo addiction-ka ka hadlayso waa maxay but addiction-ka waa cudur oo maskaxda oo aadan hadaadan waxba ka qabinin oo u baahan xataa opioids marka laga hadlaayo dawooyin jiro lagu daaweynayo oo maanta oo dhan aan sheegay receptorska endorphin receptorska oo maskaxda ku yaalo opioids ku dhigaayo dawooyin oo la compete gareenayo opioids kaas jiro oo craving-ka hoos u dhigayo together with that dawooyinkaas social support family support iyo waxyaalahaas dhan sida loogu bixi karo waayo ma aha wiilkii ugu qeelinayay iyo waryaha iyo Africa la geenayay iyo saas kuma dhamaado bahal ma xalka waan ka hadli doonaa Cabdiraxmaan waxa tahay madaxa hay'adda Daryeel Youth hadaan ku weydiiyo wixii kuugu yaabka badnaa ama kuugu naxdinta badnaa intii aad dhalinyarada ku dhex jirtay aad kala kulanto isticmaalka maanduuriyaasha wallahi marxalado badan oo la yaab leh ayaa soo maray laakiin xagga isticmaalka maanduuriyaasha aniga waxaan u bilaabay Daryeel waa maaragtay waa mashruuc iska wuxuu qabsaa shakhsi ahaan ma aha shaqo ahaan waxaan ku shaqeeyo ma aha 2 sano ka hor waxaan u bilaabay waa markii dhalinyarada Soomaalida maanduuriyaasha iyo overdose-ka gaar ahaan opioid crisis-ka uu ku bilowday markaas iyada maandooriyaha ugu darnaan la isticmaalayo waxa nooc la dhaho maaragtay K2 oo hadda si yaraade laakiin taas waxay keentay marka in dhalinyaradii iyagoo overdose sameynaya gaar ahaan xaafadda Soomaalida ku badan yihiin sidara ama meelaha Soomaalida ku ganacsadaan moolasha dhalinyarada yimaadaan qofkii nafta ka baxaysa ama overdose-kaas markaa sameeyay ay dadka iska garamarayaan maaragtay qof u gurmanaya ama fiirinaya uusan jirin ama si ay u helaan maxaa la dhahayay dad badan oo videogooda daawada ama like gareeya baraha bulshada ayay duubayaan qofkii meeshay kaalmeyn lahaayeen ay caawin lahaayeen marka waxyaabaha ugu darnaa waxa way qof aniga maaragtay dhalinyaro intuu yimid ila joogay oo maaragtay waqtiga inta ugu badan Daryeel Youth aan sameeyo waa habeenka Jimcaha 8 ilaa 10 waa waqtiga ugu badan ee overdose ku dhaco maanduuriyaasha dhalinyarada ay qaataan marka biisa iyo waxa siya shaah bigeys oo sinjibisha lagu badiyay si ay u baraxdo wixii maanduuriyaasha ay qaateen biisana caloosha maartay ugu buuxiso haday maanduuriyaha waxa qaataan iyagoo baahi haysa wixii ugu dhimanin marka qof yimid oo maartay biisi shaah iga cabay 5 daqiiqo kadib intuu iga tagay qaatay maartay maandooriyihii soo isticmaalay kadib laygu yaray isagoo afka xumbuqay maartay ka baxaysa oo overdose-kii intuu ku dhacay يعني dhimasho iyo nolol يعني تعبان la ama gabar Soomaaliyeed oo intay maartay maanduuriyi intay qaadatay iyadoo maartay saxarada cishan la يعني wixii ka tabatay isku sideynaysa maartay oo maartay hore iyo gadaalba wax ay ka socdaan oo afkiina mantag ka mantagtay saxaradiina cishan weyday marka qof walba damiir leh marka umadu qaadan kartid marka yani waxa waa caruurteeni waa dhalinyaradeenii marka waxyaabaha aniga igu naxdinta badan marka laga reebo isdilka iyo dhimashada iyo dhalinyaro waxa jira aniga gacanteeda ku dhintay baa Allah u naxariisto inta dhalinyaro kale ay toogteen ana shahaadada u qabtay marka laakiin xagga maandooriyaha waxa weeye overdose kaas
waqtiga yar ee qofkii isaga hadda aan la hadlaysay ama kula taagnaa sida ugu dhaqsaha badan uu maaragtay dhimasho iyo nolosha ay ugu dhaxayso markay waxaasay qaataan oo maaragtay qofkii ama qof aad taqaanay oo xalay kula jooga dhalinyaro lagu sheego inuu maaragtay baawur inta wixii ku qaateen ay ku dhinteen oo aad aaskoodii ka qayb gasho waxyaabahaas ay ugu naxdin darbaan cabdiraxmaan waxaa weeyaan waa arrin aada murugo ula weeyaan daryeel waxaa weeyaan hawl aada u culus bay haysaa waana lagaaga mahad celinaya dhammaan kulley cid allaali cidda u qabatay cid kastoo soomaaliya oo og saameynta iyo dhibka uu daroogada uu ku hayo maxaa la oran jiray bulshada soomaaliyeed cabdiraxmaan su-aasheena waxay tahay innaga iyo daryeel iyo bahda shawaal media iyo dhammaan Somali community rol intee la eg ka qaadan kartaa is leedahay xadidida ama joojinta hawshan daroogadan isticmaalka daroogada horta waan idin mahad celinayaa bahdiina shawaal media dr zakna waan mahad celinayaa wacyigelinta waa muhiim marka dadka la wacyigeliyo gaar ahaan wacyigelinta ayaa waxay tahay laba qayb midna waa dhalinyaradii in looga digo khatarta ay leedahay iyo halista ay leedahay isticmaalka maandooriyahan gaar ahaan waxaadan aqoonin oo macamil ah oo maaragtay dhimasho iyo nolol ah midna waa waalidka oo iyagu aanu ogeynba halista ay arrinta leedahay waalid badanna runta markaan kuu sheego carruurtooda way inkiraan waxay ku leeyihiin maaragtay wiilkaygu wuxuu u dhintay maaragtay wadnaha iska istaagay ama soo kici waayo tii ilaahay baa u timid cunug yar oo 15 jir ah ama 16 jir ama 19 jir dhakhtarka ka jawaabi doono heart attack iyo wadna istaag uma dhinto tii ilaahay gooni weeye marka laakiin dhibaato jirta waxa weeye inkiraada ay maaragtay waalidku ay inkirayaan saameynta jirta iyagoo og tusaale ahaan haddaan ku soo qaato wacyigelinta waxay muhiim u tahay waalid badanoo waxaa jira aanan aqoonin baaxadda ay la eg tahay arrintan oo u malaynaya carruurtooda guriga u jooga u shaqeeya ama iskuul aada ama yani u haystaa inay yihiin maaragtay dhalinyaro carruur wanaagsan laakiin in addictionkaas uu xanuun baabiye ku bilowday ama siduu uu dr zak sheegay dhalinyaro saaxiibadooda ay bareen oo maaragtay waalidkoodna way ka qarsadaan marka waalidkiina ma oga inay dhalinyaradooda qaataan marka wacyigelinta noocaan oo kale ah barnaamijyada noocaan oo kale ah waa wax baahi loo qabo oo la rabo in la joogteeyo gaar ahaan warbaahinta soomaaliyeed sida idinkoo kale ah aan rabo inaad sii xoojisaan marar walbana inta badan waxaan arkay markay dhalinyaradu ay dhintaan ama qof uu dhinto ayaa arrimahan oo kale laga hadlaa laakiin waxaan rabaa in arrintan si joogto ah looga hadlo oo dhalinyarada markay ay dhintaan keliya ma aha laakiin si joogto ah barnaamijyo joogto ah wacyigelinaya inay noqdaan cabdiraxmaan aad baa umahadsan tahay waan isku daynaa in maxaa la oran jiray waxyaabo badan inaan wacyigelin badan aan samayno haddii ay macquul tahayna documentariyaal badan aan ka diyaarino annagoo su-aasheena kusii guda jirna dhakhtarkana aan ka faa'iidaysano insha allahu tacaala bal sida communityga uga hortegi kara arrintan horta anagu communitygeena soomaaliga haddaan nahay marmar ma jecelnin siduu cabdiraxmaan sheegay inaan runta isku sheegno waa inaan ka bilaabnaa runta hadduu wiilkaaga ama gabadhaadu ay ku dhimato drug overdose haddaadan dadka kaleeta u sheegin war niman yahow dhibaatadaana dhacday hebel 16 sano sidoo cabdiraxmaan sheegaya 16 sano jir ama 20 jir oo sudden death ku dhacayo that means cudur oo generic ama cudur xun oo laga filanayna ku dhacay which is rare ama drug overdose way more than likely marka waa in runta la sheegaa la dhaho niyahow hebel samba ku dhacday waa wax oo taboo ma aha cunug yar waaye anything can happen peer pressure baa lagu sameeyay dawadii baa loo dhiibay dawadii addiction bay leedahay addictionkii lagama caawin right system iyo support system iyo medication assisted treatment iyo waxaas laguma sameynin marka waa wax iska dhacay haddaa adigina qarsatid marka kii kaleeta dariskaaga ahay ama kula dhashay wiilkiisii gabadhiisana sidoo kaleeta ku dhacayso marka waa in runta la isku sheegaa meesha in laga bilaabo waxaa laga yaabaa kii ka dhintay kaleeta xataa inuu kii ku harayna inuu mar labaad ku dhaco haddaadan sheegin marka haddaa aa soo baxdid
aad sheegtid waniyow cunugeygii saan baa ku dhacday ilaahay u naxariisto kiini ka ilaaliya maxaan sameynaa community ahaan marka waa support system inaan sameynaa social support system organizationada aan leenahay Somali organization iyo masaajidada waa in effort ama waqti ay geliyaan dhalinyarada sida lagu badbaadin lahaa markay imaato iyo future-koodaba just badbaadiska xataa lama aha in laga qabto daroogadii iyo meesha xumeed iyo in also meesha saxneed lagu aadiyo iyo career iyo family sida u samaysan lahaayeen in la baro la tuso marka social support system in loo sameeyo waaye maamooyinkii iyo aabooyinkii in la siiyo waaye education about waxa dhacayo dhalinyarada haysato because opioid crisis-ka siduu sheegay Cabdiraxmaan oo kaleeto ma aha wax Soomaali haysato marka Soomaalidu inay ogaato waa wadankan waa degannahay wadankan waxa haysto anagana wuu qabsanaya ma jirto anagu Soomaaliya leenahay iyo dhaqan aan leenahay iyo waxa waa leenahay dhaqan Soomaali waa nahay diin baan leenahay laakiin se dhibaatada wadanka haysato anagana way qabsanaysaa ciyaar meeshaan ku korin marka hadda fiirisid opioid overdose sanadkii 2018 waxaa ku dhimatay almost 70,000 2 out of 3 of those na waxa waaye opioids waaye ma fahamtay marka waa inaa organizationadii iyo masaajidadii inay iskugu imaadaan waaye social support system community centers in loo furo dhalinyarada mentorship in loo sameeyo waaye de anagu dhalinyaradani marka waxay arkayaan TV-ga iyo also dhalinyarada kaleeto waxyaalaha xun ku jiro marka they glorify waxaasay glorify garayaan marka dadka fiican iyo dadkii wax dadkii fiicnaa iyo dadkii wax qabsaday ma arkayaan marka waa inaa la tusaa in community-ga iyo waalidiintana isku imaadaan waaye waalidiintana in loo sameeyo waaye meel imaan karaan education iyo haro ciyaalkoodii maadaama gap uu jiro cultural gap also uu jiro waalidiintii dhaqankii Soomaaliya ee haystaan dhalinyaradina intay ku dhasheen marka waa gap weyn baa jiro marka in loo sameeyo waaye workshops la barayo ciyaalkaaga se ula communicate gareyn kartaa maadaama ayagu inta ku soo koreen inta ku dhasheen adiguna dhaqankii wali ayse dhexdasa iskugu imaan kartiin ma fahamtay adoo oodan dhaqankaagii tuureynin see u badbaadin kartaa marka waa wax oo community iyo organizationada iyo masaajidada u baahan yihiin inay iskugu imaadaan ka hadlaan waa haddii wax laga qabanna waa uu ka sii daraya because opioids wax ka daran baa imaanaya badbaadada dhalinyarada waxa u taalaa bulshada oo dhan qof walba waa in la iskaashado mas-uuliyaddu koowaad horta waalidka ayay saaran tahay oo iyagu xilkaas u saaran yahay oo la rabaa carruurtooda inay ka warhayaan carruurtoodu inta ay guriga ay degan yihiin waxaa dhacda inta badan inaan xornimo iyo maaragtay freedom dheeraad ah dhalinyaradina aan siino la xisaabtan dhab ahna uusan jirin marka mas-uuliyadda koowaad horta waalidka ayay saaran tahay oo la rabaa ubadkooda inay ka warhayaan waxa ay isticmaalayaan guud ahaan marxaladda ku sugan yihiin waa dareemi kartaa cunugaaga markuu isbedelo gabadhaadii wiilkaaga markay isbedesho yani siday ahayd iyo waxyaaba waxaa jira haddaad u fiirsato carruurtaada ka warhaysa waa dareemi kartaa marxaladda ay ku sugan yihiin isbedel inuu yimid midda koobaad hay-adaha iyo ururada iyagu maaragtay non-profitka ama si gaar ah oo la shaqeeya dhalinyarada qaar badan waxa weeye duruufo badan ayaa jira capacity-gii iyo aqoontii ayaasan jirin inta badan anagu ma lihin xarumo gaar soomaalida u ah xafiisyada iyo meelaha dhalinyarada lagu caawiyo waa meelo loogu talagalay qof dhalinyara lagu hayn karo oo maaragtay barnaamij high quality loogu samayn karo ma laha dhalinyaradii fahmi karta ama shaqaalo dhalinyaradii fahmi karana ma laha oo generation gap ayaa jira inta badan dad waaweyn ayaa ka shaqeeya oo dhalinyaradii fahmi karin iyo marxaladda ay ku sugan yihiin marka taasna waxay keentaa waa hadda arrimaha dhibaatada masaajidada haysta dadka masaajidada imaamada ka ama maamulintooda badan waa dad maaragtay waaweyn culamo waaweyn ama dad waaweyn oo luqadii xitaa aan ku hadlin dhalinyaradiina waa maaragtay waa dad maraykanka ku dhashay waddankan ku dhashay marka dad qof fahmi kara oo soo dhoweyn kara maaragtay ayay u baahan yihiin marka bulsho ahaan waalid ahaan culamo ahaan dadkeena waalidka dadkeena waaweyn
waa inaan iskaashano dadka ganacsatada sidoo kale waa inay iyaga laftigooda xitaa ay dareemaan inay ka qayb qaataan oo mararka qaarkood hay-adahaas iyo dadkii wax u qaban lahaa maaragtay dhalinyarada dhaqaale xumo ayaa jirta baahi ayaa jirta marka dadka ganacsatadu inay kabaan oo maaragtay ka warhayaan laakiin midaba jirtaa waxay tahay hadda magaaladeena waxaa ku soo batay dhalinyaradii gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed inay meelaha ganacsiga boorsooyinkii dumarka ay ka dafaan telefonadii ay ka dafaan moolasha soomaalida waxaa dhacday in masaajidadii xitaa iyagoo baskoolada wata ay isku dayaan inay baabuurta dadka ay kala degaan goobihii masaajidka baakinkooda marka baaxadda ay leedahay waa dareemi kartaa maandooriyaashana dhalinyaradu qaataan maalintii waxay u baahan yihiin $100 ay ku gataan ama maaragtay addictionka levelka uu gaaray $100 marka haddii aadan hayin qofka dhalinyarada uuna shaqaynin wixiina u baahan yahay waa inuu meel kale ka keeno marka waxay keenaysaa marka in boorso la dafo in telefon la dafo in baabuur qof lagala dego in wax la xado hadda case waxaa dhacay wiil dhalinyaro ah hooyadiis ayuu telefonkeeda ayuu markuu guriga yimaado telefonka hooyadiis intuu qaato uu dhaho hooyo telefonkaaga aan isticmaalo ayuu cash appka hooyadiis ayuu lacag ka dirsan jiray marka maalintii dambe telefonka u diiday markay ku fahantay inuu mar walba cash appkeeda uu lacag ka dirsado telefonkii u diiday telefonkii marka u diiday wiilkii maandooriyaashii wixiiba hay maogtahay wuxuu rabay lacag wixii ku gato hooyadiis ayuu martay fartay qaada buu jabiyey wax kalena ma aha yani telefonkaasuu cash appka lacagta uu ka qaadan jiray daraaddeed arrintu halka ay marayso hadda aniga waxaan gacanta ku hayaa narcanki waaye dawada maaragtay qofka markuu overdose sameeyo la siiyo inta maaragtay 911ka maaragtay ambulance u imaanayso first responderka iyo dadkii kalkaalin lahaa caawin lahaa intay u imaanayaan dhakhtarka laga geynayo marka waxaa loogu talagalay markaa fiiriso waa irbadii qofka maaragtay lagu dureeyey waa 2 doos waaye waagii hore marka labadaas irbadood ayaa ku filnay qofka inay maaragtay ay caawiso overdoseka reversal inay ku samayso intuuna dhakhtarka aan la geynin ama ambulance u imaanin hadda waxay noqonaysaa in qofka loo isticmaalo 4 doos ama ugu yaraan 3 inaa u isticmaasho waxay ku tusaysaa marka dawooyinka maandooriyaashan ay qaadanayaan dhalinyarada iyo drugska how strong ay yihiin iyo dhibaatada baaxaddu intay leedahay waana waxa keenaya dhimashada qofka markiiba neefta ku dhegaysa lagama soo gaari karo marka waxaa loo baahan yahay bulshadii in waalidkii la tababaro oo maaragtay si u isticmaali lahaayeen narcanka training la siiyo tababar la siiyo in ganacsatada soomaaliyeed ama meelaha dhalinyaradu ay istaagaan xalaalada iyo moolasha dadka xalaalada leh ama ganacsigaas laftigooda in la tababaro oo markay arkaan qof dhalinyaro overdose samaynaya inay ku duri karaan ay caawin karaan in waxaan waa dhibaato waddanka maraykanka dhan haysata dhalinyaradeenna keliya kuma eka inaan dhahno dhibaataana haysata aan xaqiiqda ka hadalno oo aan dhahno dhibkana jira seen xal ugu helnaa seen iskaga kaashana waa in marka bulshada oo dhan si qaab emergency ay u shaqayn karaan bulshadu waa inay wake up call samayso oo maaragtay hadda this is the new normal nooc hadda waxaa jira la dhaho cart fentanyl waxaa loogu talagalay yani awoodda ay leedahay maroodiga yani dawooyinka maaragtay culayska ay leedahay ayay hadda waa nooca hadda ugu daran ee la gato la raadiyo marba marka ka dambaysa nooca khatarta loo dhinta ay dhalinyaradu marka waalidkii iyagoo ag fadhiya ayay waxay isticmaalayaan magacyo ay ka mid yihiin black star iyo faraskii ma haysa horse ay magacyo waxay ugu yeeraan ma aragtay drug marka waxaa u malaynaysaa adigu wiilkaagii gabadhaada inay sheeko caadi saaxiibadood la haystaan maaragtay junk iyo maaragtay ha marka waalidka waa in ay isdhahaan war xaaladda the new normalka hadda waxa weeye cunugaaga hadduunan isticmaalin saaxiibadiisa ayaa isticmaala
wayna isdursanayaan cunugaaga haddaad siidar kala carartay oo sabarban kala degtay inuu kuu badbaaday ha u malaynayno waa dhalinyarada ugu daranba waa kuwa sabarbanka degan marka sidee maxaa la dhahay xeero lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan sheekadu inay noqoto sideen bulsho ahaan iskugu nimaadnaa ama masaajid ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama community ha noqoto ama tababarayaasha iyo kooxaha dhalinyarada maaragtay caawiya ha noqdaan ama dadka dhalinyarada la shaqeeya ha noqdaan sideen arrintan degdega ah marxaladda degdega aan ku jirno sideen wax uga qaban karnaa isku kaashan karnaa waxaan filayaa bulshada soomaaliyeed daawanaysa in maaragtay ay dhegaystaan kolley talooyinka dhakhtarka uu soo jeediyey iyo cabdiraxmaan intaba muhiimadduna waa in bulshadeenu mar walba ay la baraarujiyo oo isku yimaadaan oo ay ogaadaan dhibaatooyinka haysta aad iyo aad baad umahadsantiin labadiinuba waan idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh waqtigiina aad noo siiseen aniga iyo fu'aad iyo dr zaak iyo cabdiraxmaan mukhtaarba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo inta aanu dib ugu khidmi doono barnaamijka mid lamida siyaada waa mahadsantihiin السلام عليكم إلى أن تبقى شذا حصوص